السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى شرف كان مسكبدان وصحيحكم إسماعيل بيريا عندي من عسان دونا برنامج كان ريفيد أركتكتر عشر كيسي سيدات كان أيام توح نقول دونا فرنيجر سيدا لو قلبيو 2D بلانكا 2D بلانكا ماشي كاغا موضوع سيدا لو قلبين لهيت إن شاء الله حنسمي دونا فرنيجر كأساق وكوي ما ريفيدكا oo Revit-ka ku soo download gareysmo ayaan isticmaali doonaa hadda u baahanana waxaan ku tusi doonaa meelo kale oo aad ka soo degsi karto furniture kale oo dheeriya waliba aad u fudud okay marka ugu horeyso horta waxaa jira dadka qaarkood Revit-da ay isticmaalaan sida online scan ay u muuqdaan si nadiif ah u muuqanayaan haddii ciladaasi ku haysato waxaa samayn kartaa inaad tagto visual style-ka inaad ku dhufato kadib aad doorato wireframe haddaad doonto waxaa inta visual style-ka tagto realistic ka dhigi kartaa hidden line oo ka dhigi kartaa marka cilada halkaas uga bixi kartaa sidoo kale waxaa jira dad Windows-ka daaqadaha marka ay geliyaan guryaha aysan u soo muuqanin dadkaas waxay tagi karaan visibility graph-kan ay ku dhufan karaan kadib checks-ka meelahan saaran ay ka qaadeen Windows-ka sample halkaas isleeyahay kale wixii ka maqan halkaan ka raadi kartaa hadda check window ka qaad والله اوكي daaqadaha waa bixin oo indirbi meelaha ku saaran daaqada kuma jirto si aad u soo celiso edit aad leedahay visual balka visibility graph ku dhufo Windows ka jeeda saaro apply okay hadda si furniture kan u dhigno meeshan waxaan bixinaynaa roomiska kalradana banaanka sageynina ku dhufo waxaa fiicado si aan hadda roomiskan u bixino waxaa tagtaa visibility kadib waxaa ku dhufataa roomiskan ku dhufo kadib apply okay waa tageen xeeran waxaa kale oo aad iskaga qari kartaa control z ku soo celi waxaa kaloo iskaga qari kartaa inta ku dhufato inaad okiyaalka halkaa ku dhufato kadib aad ku dhufato hide category tagayaan adana waa la mid okay furniture kan bilaabaynaa marka waxa shirkadana ugu muhiimsan haddii la yiraahdo furniture waxaa ku dhufataa qaybta architecture qaybtan kamid ah components ku dhufo qaybtan hadda waxa ku jira disk iyo trees geeda noocaas ku jira marka sariirihii aan u baahanahay inaan soo gelino armaajooyinkii iyo waxyaabahaas inaan qolka ku soo qalabano load family ku dhufo kadib waxaa ku dhufataa furniture kadib waxaa ku dhufataa badis sariirihii sariirtan noo soo qaad kila kursi obile horta marka qaybtan saani kugu muuqata doysan ka taajirto listiyo kale hadda markay tahay xoogaa inaad aragto inaad ku dhufato waa kan ku dhufo saas inaad tiraa waaye view iskaas tag thumbnail hal marka dhigo si automatic hal mar aad go'aan u gaarto sariirtan oo laba nafarkaan ugu dhufo tan waa single midaan waa midii carruurta midda balaayadoo ah marka tan noogu dhufo obindhe waa noo wada hore ha ka dhiganaya halkaan imal ergidhe si cabirkaa rabtaa sida saxda lansiga wadiska waa kana lansigiisa dar waa mitiryo 90 wadiskeedana waa mitiryo 30 sidaas noogu dhaaf hadina waa wadataa soo qabo halkaan Nordic
haddaad rabto haddaad sayidkan inaad dhigto adiga aad jeceshahay aanaa u dhigay intanaa leedahay waa ka laabanaysaa waa ku dhufanaysaa kadib waxaa soo qaadanaysaa calaamadaas rotate kadib halkan keliya aad 0 ka dhigi kartaa. haddii kale control Z aan kusoo celiyo haddii kale waxaad samayn kartaa waa ku dhufanay kadib calaamadaas move-ka ee modify toolka hoos timaada ayaa ku dhufanay move abo sidoo kale waxaa intaas ku darsataa hadda furniture-ka kan rotate aan ku sameynay doon wax rotate ku sameyn waxaan isku dayaynaa inaan si kale u wareejino kan ku kor dhufo right click create similar asagoo kale iyo abuur waay asoo kala qaadanay then si aad rotation ugu sameyso waxaad taabanaysaa calaamadii space-ka taabo koow dhinaca kale martay waa kaa meesha rabtay kuu joogtaa then qabo ku dhawee haddii kale meeshaan iska dhig sidaas ayaa reebtay kadib halkan 0 on ka dhig si automatic ah haysta haddaad rabto inaad meelahaas ku aadiso dhexda xorriyad maantoo dhan move toolka isticmaalin falaartika isticmaal daaqada ku aadi rabto dhinacaas marka okay midkaan naga tir delete hadda sirrids meesha noo taala rabaa inaan eegno sideen ku arki karnaa waxaa ku arki kartaa waxaa ku dhufanaysaa 3D viewgaas geeskiisaas falaartira ku taalaa ku dhufanaysaa then waxaa soo qaadanaysaa camera halkaan oo kala dhigaysaa bas hujidaysaa click then banka noo qabo waxyar kor u qaad kadib waxaad sameynaysaa waxaad tagtaa visual cell realistic waa taasaa iyadoo daaqadii hoos taalla kadib cameradan ku samaysanta 3D view for view 1 camera rename cameradaas waxaan ku qoran kartaa master room hadhow master roomka camerada qaadatay halkan baa double click leedahay waa arkaysaa waxaad samayn kartaa qaanadaan soo geli karnaa qolkan waxaa ku dhufanaysaa component family load kadib korku sii furniture gadaal ugu laabo kadib waxaa ku dhufataa storage kaasaan geli karnaa dadkan kala soo geli karnaa waa dhignay then waxaan sameynaynaa waxaa ku dhufataa master room qaanadahaas waa soo gelinay sidoo kale waxaa soo geli kartaa furniture-kan yaro fiiran haddana sii wadno waxaa soo geli kartaa miiskaana soo geli kartaa waxaa sameynay space aa taabanaya
hadda rabto haddii kaamiradan ay ku deeqi weyso mid kale aad samayn kartaa. realistic ka dhigay waxaa kaloo samayn kartaa 3D view ga magaca bixin kartaa rename leh master room 2 عمل على الرعينة وانكي واكنا 2 كان سايد كان كلا غادي ما بروبلم كو ما يسو اوكي دين waxaan soo dhigaynaa qolkan fadhiga ayaan fadhi arbad dhigaynaa waxaan ku dhuftaa component load family furniture ka gadaal ugu laabo seating markaan la soo bax kanoo kala noocaad open dheh waa wadataa Nordic waxaa soo qaadataa calaamadda rotate-ka زير ka dhig qaybtaas markaan haddaad doonto move isticmaal ama flare ku kor dhufo right click create similar inta maanta soo qaadi lahayd halkaan noo dhig oo halkaan noo dhig rotate اوكي asagana ku dhufo calaamadda rotate move tool soo qaad rotate camera balan ka qaadna isagana waka kameradaas waxaa u bixinaa marka sitting room right click kordhe rename sitting room okay halkaas aan miis soo dhigaynaa miiskaas soo dhigay waxaa tagtaa architect component load family furniture tableska midkaan noo soo qaad okay edit tab iska leedahay haddii aad rabto si height-ka width-ka iyo length-gaas kaga saxdo height-ka 26
lengthigaaga waxaa ka dhigataa 2 widthkaaga meter apply okay marka copy aan ri kan rotate noogu samee kadib move soo dheh kameradan furna marka fiirino dadku waxaa samayn kartaa miiskan laftirkiisa options uu leeyahay asaab ku dhufa kartaa halkaas aad furi kartaa option kale uu leeyahay soo maaragtid halkaas ku dhufa kartaa option ka yar waa kii hore familiga intaan wax ka badan marka u baahato adoon wareerin tartiib la soo deg website fooda helaysaa lagala soo dego waxaa ka mid ah website-kan la yiraahdo famility.com famility wuxuu hayaa waxaan oo website ah waxaan oo baalka xid furniture ku jira furnitureskan tirada badan ka doontaa la soo degi kartaa Windows baa ku jira soo structure ku jira waxa ku jira baalka xid site diyaarsan waxa ku jira baalka electrical doors ku jira detail components ku jira okay hada furniture la soo degayna furniture waa kaas halkaas ku yaala ku dhufo marka ku dhufato maxaa u baahan tahay cabinet-kii u baahan tahay chairs-kii u baahan tahay glass room library u baahan tahay hadda waxaan ku dhufanaynaa cabinet ku dhufo das ayaan la degaynaa halkaas ku dhufanay calaamadaas oo download ku qoran tahay ku dhufo jawaadi uma baahna inaad username ka samaysato uma baahna inaad geliso gmail soji dhexkan halkan edit awtan hada qaybtan cabinet ka dhigayna halkan oo kale dhigayna camera no soo qad waan naga sii jeedaa soo jeedinaynaa waata space kaliya aan taabto inta kale korkeeda ku dhahay waa badi kartaa waxaan sameeyaa copy qaado multiple aad dhigi kartaa right click cancel leh aku armajoonkeena waa dhigtay